السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أصحابتك soo dhawaada janalka Faiza's World. aad iyo aad idin salaamaya waxaan rajeynaya dhammaantiin inaad wada nabad qabtiin. soo dhawaada asxaabteyda qaaliga ah. maanta waxaan noo hayaa shaambo nafaqaysan, nafaqa aan ku dareyno. shaambo waxaa asxaabtan uga hortagayna kiimikada shaambada ay leedahay. madaxa hoose qaleelka ka ilaalinayso oo qoynayso, sidoo kale jilcinayso, jilic ka dhigayso. shaambooyinka marka asxaabta kiimikaal ay leeyihiin maadaama shaambada kiimika ay leedahay, anakana aan ku jirno tartankii oo timaha. waxaa muhiim ah timaheena qaleelka inaan ka ilaalino, laana qaleelka wuxuu sababayaa in tintii inay soo jajabto ama ay soo gogo'do. marka shaambada waxa waaye shaamba aan nafaqeynayno, yani shaambada waxa shaamba hore usoo sameeyay janalkay ku jirtaa. insha Allah janalkan kasoo bixinaya videogan kusoo diraya. shaamba waxa waaye laba shay aan ku dareyno. shaambooyin badanna way jiraan asxaabta hore aan usoo sameeyay oo soo nafaqooyin aan kusoo diray aad iyo aad u fiican, yani timaha ka ilaalinayo qaleelka timaha ay sababayso shaambada kiimikada ay leedahay. shaambo kamid ah shaambooyinkaas sidan videogan aan kusoo diraya. shaambo waxa waaye aad u fiican oo timaha qoynayso, qaleelka ka ilaalinayso, sidoo kale jilic ka dhigayso. kiimikadana ugu hortagayna maasha Allah. waxaan ilaa asxaabta soo dhawaada, aad iyo aad u mahadsantihiin. videoga like dhaha, share gareyn asxaabtiin u share gareeya, like tan hilmaamin insha Allah. videoga like badan noo saara, aad iyo aad ugu mahadsantihiin. haddii aan ugu cusub tahay marka ugu horeysa aan soo booqatana ahlan wa sahlan waan kusoo dhaweynaya. janal qurxin waa wax badan aad ka faa'iidi doontid. janalka subscribe ka taabo, gambaleelkana furo si videoyaasha cusub aan soo gelino si toos ay kugu soo dhacaan insha Allah. aad iyo aad wada mahadsantihiin dhammaantiin. soo dhawaada marka asxaabteyda qaaliga ah. shaambada maantana asxaabta shaambo waxa waaye laba shay aan ku dareyno, laba shay aad u fudud oo gurigeena aan ka helayno. timahana noo nafaqeynayaan oo qaleelka ka ilaalinayaan, ratuuba siinayaan oo qoynayaan, timaha jilic ka dhigayaan maasha Allah. waxaan u baahanahay oo shaambada aan ku darayaa labadan shay. waxa waaye bariis cad. bariiskan waxa waaye bariiska cad oo kuskuska ah. marar badan ka soo hadla bariiskan cadka ah inuu yani bariisyada kale oo ka gedisan yahay oo waxa leeyahay nasha oo leeyahay ama corn flour oo aad ugu fiican yahay yani qurxinta. iyo waxa kale oo maxaa la dhahay aan ku darsanaynaa flaxseed ama qoondar. flaxseed waxa waaye Englishka, qoondar iyo saliid waxa lagu yaqaanaa Soomaaliya. wadanka aan joogano waxa laga dhahaa bazuurul kutaan. marka afartaas magaca oo aqaana asxaabta masawirkiisana insha Allah inta idin soo saaraya. labadaas shay waxa u baahanahay. waxa kale oo lagu daraya insha Allah vitamin E oil. marka intaas waa intaan u baahanahay. marka hore bariiska iyo flaxseedka aan dabka saaraya. waxaan ku shubayaa 2 bakeeri oo biyo ah. waxaan ku karinayaa dab oo dhexdhexaad ah. waxaan ku karinayaa dab gaaban adi marka wuxuu noo saarnaanayaa dabka min 4 daqiiqo ilaa 5 daqiiqo noo saarnaanayaa. waxaan sugaynaa intii markana oo flaxseedka oo jiilkiisa oo si fiican uga soo baxayo. flaxseedka marka jiilkiisa oo soo baxo, bariiskana adi oo wax yar oo bislaado, markaas ka bacdi aan isticmaalaynaa, aan biyaha ka qaadanaynaa insha Allah. flaxseedka marka jiilkiisa oo soo baxo oo jiitmo oo bariiskana yani oo bislaa rabo, markaas camal macnaata waxa waaye khalaas waaye. aham shay waxa waaye jiilka marka aragtid inuu jiitamayo yani oo biyihina ay yaraadeen, khalaas waaye markaas sidoo. waa kana marka saan camal oo noqdo bis waaye. marka waa ka daminayaa dabka. haddana waa miirayaa. waxaa la rabaa in lagu miiro kuleelka in lagu miiro. haddii uu qaboobo ma miirmaayo, waa fadhiisanaa jiil oo noqonaya. laakiin waxaa fiican marka dabka aad ka damisid intuu kulul yahay in la miiro. si fiican u miirayaa. si fiican aan rabaa inaan uga qaato nafaqada. waxa waaye flaxseedka iyo bariiskaba vitaminaadkooda iyo nafaqadooda waaye waxa anaka markano hadda aan miiranayno oo rabno inaan shaambada aan ku shubano. marka si fiican aan rabaa inaan uga dhameeyo. si fiican oo miirayaa. maasha Allah. waa kana markii aan soo miirnayna saani ku soo baxeen bariiska biyihiisa iyo flaxseedka jiilkiisa. waxa waaye bariiska waxaan ka helnay biyihiisa aan ka helnay, laakiin flaxseedka waxaan ka helnay waxa waaye jiil. laana flaxseedka wuxuu leeyahay jiil oo leeyahay, waxa waaye wax jiitamayo leeyahay. labada nafaqaba waxaan ku shubanaynaa shaambada. shaambada intaan ku shubin marka hore waxaan ku shubayaa vitamin E oil. vitamin E capsule haddii aad haysato waa ku shubi kartaa, labadoodaba isku mid waaye. marka ani hadda waxaa ii yaal vitamin E oil, yani waxa waaye vitamin E ga saliidiisa waaye. wax yar aan ku shubayaa marka. haddana isku qasaya si fiican isugu qasaya
si fiican isugu qasaa markaasa maasha allah jiil waaye isaga dhanbo flaxseedka jiilkiisa waaye waxaas haddana waxaa ku shubayaa shaambada marka waxa waaye haddii ay ku buuxdo nusaa ka isticmaalaysaa hadda ani shaambada nusaan ka isticmaalaya la-in shaambada buuxdo in lagu shubo ma aha marka hore shaambada nusaa ka dhigaysaa waa kala qaybinay inta kale waxaan ku kamilaynaa nafaqada aan ka helnay bariiska iyo flaxseedka marka saasa isugu qasaaya si fiican aan rabaa inay isku dhex galaan iskugu qasmaan si fiican aan isugu qasaaya ka bacdina waxa waaye jaahiz waaye waatasaa marka shaambadii saasay jaahiz noogu tahay maasha allah shaamba waxa waaye nafaqo leh kaal iska arag yacni faa'iido badan aad ka helaysid intaa ku dhaqale heeda shaamba caadi oo chemical leh waxaa ka fiican shaambada inaa markino saa camal aa u samaysatid oo ku darsatid in waxyaabaha dabiiciga oo nafaqooyinka leh sida hadda u sameyn oo kale aniga hadda waxaa ku darsanay bariis iyo waxaan ku darsanay flaxseed saan camal aa u samaysanaysaa kadibna waxa waaye timaha u isticmaalaysaa timaha ku dhaqanaysaa saa markaa u samaysatid kiimikada badan oo shaambadii ku jirtay way ka khafiifayaan vitaminaadna waa ka helaysaa iyo nafaqo marka asxaabta waxaa idin leeyahay isla ogaada shaambooyinka saan loo samaynayo insha allah iyagoo kala gedisan oo kala ceen oo vitaminaad iyo nafaqo aad ka helaysid kiimikada shaambooyin ku jirana aan uga khafiifinayno insha allah aan soo geli doono haddii ilaahay idmo iyagoo kala ceen waxaan loo isticmaalayaa sida shaambooyinka caadiga loo isticmaalo caadi aa ugu dhaqanaysaa tintaada أهم شيء لكن وحوالي تلاجد اللي قلي واي لازم تلاجد اللي قلي واي برنامج مرقو نافكره لأنه وحن قدرنا وحوالي عنتان قدرنا بريسان قدرنا فلاكسيد عنتوين كساس مركب برنامج كله نافنا وعوضنا خانا ويهلا باين مركب وحوالي إن التلاجد أجشتت أو تلاجد أكيد استعماشد إن شاء الله تدغالي وحد الله يسلو قاعد إن شاء الله وحن رجينا يا إن دمانتين أكوذ هالشين أو كوذ فائدين haddii aad ka hesheen waxaa idin leeyahay videoga like dhaha asxaabtiina u share gareeya haddii aan ugu cusub tahayna channelka subscribe dheh beelkana oon ka dhigayso videoyaasha cusub oon soo dhigana u aragtid oo si toosan iskula socono insha allah waxaa noo balan videoga dambe waxaan idinkaga tegayaa fi amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu